asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada walaalayaal barnaamij yaroo kooban haweenaydu maxay samaysaa markay keligeed guri ku tahay gooni ayna u baahan tahay wehelkaasoo gooni ah baynamaa ay kor u kacaan dareemayaasheeda kuwaasoo dareemaya inay u baahan yihiin wehel keligeedna ay ku tahay hal qool oo ku gooni noqoto waxa ay dareemi karto iyo waxa ay samaynayso muwaad garanaysaa waa marka shaydaanku uu arka iyadoo gooni ah ku fakaraysa waxyaalo badan oo la xidhiidha dareemayaasheeda shaydaankaasoo isku dayaya inuu haadaan ka tuuro markay gooni u nooshahay ama ay sahaysan wehel shaki kuma jiro walaalayaal insaanka iyo bini'aadanka inuu yahay makhluuq daciif ah abuuristiisa waa inay tahayba mid daciifaba waa mid daciifaya oo u iilanaya xagga shahwadiisa mana awoodo inta badan inuu ka adkaado macaansigiisa ay u tilmaamayso naftiisu shaydaanna uu dabada ka riixayo sida ilaahay buu yidhi tabaaraka wa tacaala wa khuliqa al-insaanu daciifa bini'aadanka waxaa laga abuuray ama lagu abuurayba isagoo ah mid daciif ah oo inta badana iska difaaci karin uu iilashada xagga shahwadiisa waxyaalaha inta badan casrigeennan ay dadku inta badan u iishaan lacalla laga yaaba inay tahayba xagga dareemayaashiisa waxay u tilmaamayaan iyo shahwadiisu sababtuna waxa weeye waxaa dadkii ku batay filimaanta iyo musalsalaadka la daawado kuwaasoo inta badan kiciya dareemayaasha soona jiidaya waddooyinka qofka u sababi kara inay shahwadiisa iyo macaansigiisa naftu ay kacdo iyo tamaniga uu maskaxda waxyaalo badan ku hayo inay kacaan waxyaalaha u sababa oo inta badan arrintaa keena waa filimaantan iyo musalsalaadkan iyo waxyaalahan tirada badan ee dadku daawanayaan sidaa darteed waxaan helaynaa oan arkaynaa walaalayaal innagoo aad uga xun in badan oo dumarka ka mid ah ama gabdhaha casrigan marka ugu horraysa waxay fiirinaysaa yacnii filin ama musalsal ka hadlaya xidhiirka nin iyo naag ama raaxada qoyska iyo wixii la midka kaasoo musalsal ku dhex jira idan waxay isku dayaysaa gabadhaasi inay arrintaasi iyadoo matasho ay keento isla markii ayay ku degdegaysaa inay la sheekaysato wiilasha mid ka mid a iyadoo kala sheekaysanaysaoo ka baranaysa kala xidhiiraysa meelaha lagu xidhiidho ee aaladaha la isticmaalo iyadoo markaa aan ku jirin wacyigaasoo ka tarjumaya nolosha maanta jirta kadibna waxay u sahlanaanaysaa ooy meel cidlaa u taallaa wiilkaas ay baratay ay la sheekaysato inuu gaaro oo laga yaabaaba inuu la sameeyo waxyaalihii la reebay ilaahay naga wada badbaadiya tabaaraka wa tacaala idan waddooyinka iyo tillaabooyinka ugu wanaagsan ee haweenaydu samayn karto marka ay dareento waxyaalaha niyaddeeda ku jira oo ay haystaan gabdho la mida ayada waddooyinka ka caawin kara inay arrintaasi si fiican u muqaawamayso ama ay si wanaagsan u maamusho maxay noqon karaan mar allaala markay dareento haweenaydu ama gabadhu ay dareento xaalad uu kacayo tamanigeeda ama ay kacayso shahwadeeda iyo dareemaheedu markay daawato filimaan ka sheekaynaya raaxada qoyska ama wax la mid ah waxaa waajib ku ah markay arrintaasi aragto oo ay tidhaahdo yaa adigana raaxada noocaasa ku siiya ama qof kula wadaaga ama qofku weheliya ku siiyo ay dareento iyayse degdegin nafteeda iyo shaydaan oo gadaal ka riixayana waxay u tilmaamayaan iyaysa samayn ee nafteeda ku mashquuliso qur-aanka iyo kalaamka ilaahi tabaaraka wa tacaala qur-aankaas oo ay ugu horraysa suuratulfaatixa iyo suuratu albaqara gaar ahaan suuratulbaqara ku mashquul oo akhri oo dhegayso gurigaada markaad gooni ku tahay waxyaalahaasna dareentid shaydaanka way ka cayrinaysaa waxyaalahaasi sababaya suuratulbaqara ayaa ka erinaysa mashquulkaada marka xaggaa u badi shaydaanka wasakhda uu qalbigaada ku soo ridayo way baxaysaa inshaa allahu tacaala naftaada iyo cirdigaada iyo sharaftaadana way kuu badbaadayaan mustaqbal wanaagsanna waa yeelan doontaa inshaa allah laakiin haddaad isku dayday inaad aliftid musalsalkaa waxa ku dhex jira iyo in badanoo khiyaali u dhigan mustaqbalkaada halis buu ku jira kadib weysayso 2 ragcadood oo salaada tuko rabbigaa deeqda badan hortiisa istaag salaadaada dhexdeedana ku ducayso inuu ilaahay xumaantan kaa leexiyo mar dambana ha u noqon inaad keligaa gooni u noolaatid ama aad
gooni u fakartid adoon waxba samaynin si aada u gelin xaydaabka ama shabakadda shaydaanka weliba si sahlan aada ugu gelin iyo shahawaadka naftaadu ay kuu sheegayso. inta badan waxaa laga yaabaa qofka keligii markuu gooni u fikaro oo keligiis nool yahay in sababka ugu weyn uu noqon karo oo shahwadiisa kiciya. marka qofka bini'aadanka looma baana inuu noqdo qof aan waxba samaynayn. gurigaada markaad joogto wax isku mashquuli wanaagsan, laakiin haddaad iska fadhiisito waxba aadan samaynayn, shaydaanku waxyaalo badan buu kuu qurxinayaa ilaa uu kaa rido meel mustaqbalkaada mugdi gelinaysa. sababtoo ah shaydaanku walaalayaal qofku wuxuu oga adkaadaa oo ku qabsadaa oo shaydaanku kugu qabsan kara waxaa weeye waa dareemayaasha iyo waxyaalaha qalbigaada ku soo dhacaya ee xunxun markay qalbigaada soo galaan. waa meeluu ka ugaarsado wey. idan si wanaagsan haddaada uga hortegin arrintaasi si fiican buu kuu qabsanayaa. marka qofka waxaa u wanaagsan oo u khayr badan inuu naftiisa ku mashquuliyo waxa anfacaya oo uu asagu naftiisa geliyaa meesha wanaagsan. hadduusan saas samayn naftiisa adeegsanaysa oo waxay gelinaysaa waxyaala dhibaya qofka. marka haweenayda waxyaalaha dareentaa waxyaalaha kale ay uga badbaadi karto waxa weeye inay la saaxiibto haween wanaagsan oo khayr badan oo u sheegaya waxa anfacaya adduunkeeda iyo aakhiradeeda. markaasaa iimaankeedu siyaadaya, cilmigeedunu siyaadaya, aragtideeduna ay siyaadaysaa, shaydaan iyo shahawaadka naftana ay ka adkaanaysaa. ilaahay ha naga badbaadiyo shabakadaha ay dhigtaan shaydaanka iyo inta u adeegta, sidii nebi yuusuf oo ilaahay uga badbaadiyey oo kale ha nooga badbaadiyo. kadalika linasrifa canhu asuu'a waalfaxshaa innahu min cibaadina almukhlasiin wailaa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljaahiliin. acmaal wanaagsan iyo iimaan suuban oo sarreeya iyo ikhlaas iyo qalbi nadiifa allah nagu irsaaqo. aamiin aamiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.